inta kadib waxaan jeclahay inaan dul istaagno laba dhacdo oo usbuucan ina dhaafay ka dhacday dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ka mid ah ee dhulka ka dhacay midda hore waxay ku saabsan tahay deegaamadeenna waana dhacdada ka dhacday magaalada Laascaanood iyo dagaalka ka socda dagaalkaasi waxaan leenahay waa inuu istaago waa in la joojiyo waa in la wada hadlo waa in la wada fadhiisto waa in si degdeg ah uu istaago waa in dhiigga daadanaya iyo hantida burburaysa iyo dadka qaxaya la joojiyo maslaxa kuma jirto 30 sano kadib oo dalka ay dagaal la sokeeyo burburiyeen oo aqli iyo way aragnimo ay kordhi lahayd in maanta dagaal lagu noqday wax maslaxa kuma jirto duruustii ina soo martay inaynu wax ku qaadan weynana waa aqli xumo inteeda leeg dagaal wax ma dhalo faa'iidana ma laha markuu dad muslimiina u dhaxeeyo marka hore waa isu ka qurxinaya inaad faa'iido ku gaadhayso iska tusaya shaytaan baa ku muujinaya laakiin akhiran marka ugu dambaysa ceeb iyo dhooba ayaa dhex fadhiisani natiijana ka gaari maysid midhaheedana waynu haynaa iyadoo ay sidaa tahay oo waajib tahay in islaax iyo nabad dhulka lagu soo dabaalo dagaaladuna istaagaan ayay haddana waxaa laga maarmaan ah oo ina arrintaasi diidaynin inaan cadayno sida saxda ah iyo khaladka dhacay iyo maxaa habboonaa magaalada muddo fatra waxaa ka jiray nabadgelyo xumo waxaa ka jiray dilal qorshaysan oo hadafkeedu u ahaa lagu beegsanayay bulshada labeenteeda haldoorkeeda ganacsatadeeda culimadeeda odayaasheeda waxgaradkeeda ka duwan deegaamada kale ee xukuumadda Soomaaliland ay ka taliso oo muddadii 30 sano ahayd nabad iyo horumar iyo barwaaqo iyo wax ilaahay lagu mahadiyo laguna farxo ku sugnaa aad iyo aadna ay tahay in loo ilaaliyo loona hormariyo iyadoo deegaamada kale Soomaalida intooda badan qaraxiyo iyo nabadgelyo xumo iyo dhibaatooyin iyo muwaajahaad ka jireen haddana muddadaasi deegaamadaasi inay nabad iyo horumar iyo istiqraar ay ku noolaayeen waa wax lagu farxo ayna tahay in la sii xoojiyo oo aan dhaawac loo geysan laakiin waxa ka duwanayd magaalada Laascaanood dilalka dhacay muddada soo socday mas'uuliyadeeda waxa iska lahaa inay ama meel ku sheegto ama soo afjarto xukuumadda meesha ka talinaysa yaa sameynaya yaa dadka leynaya yaa dadka iqtiyaalaya maxaa ka duway magaalooyinka kale waa su'aal isweydiin loo jawaab uga baahan xukuumaddu waa ku fashilantay inay arinta iyo malafka iyo faylka inay xalliso waana wax iska cad cid walba isweydiinayso nin walba maxaa dhacay see wax u jiraan qodobkaasi waa qodob muhiim ah qodobka labaad ee mudan in la tilmaamo wuxuu yahay dadkii deegaanku markay u adkaysan waayeen oo sabri waayeen oo ka kacdoomeen oo mudaharaad ka kiciyeen oo arintii ka gadoodeen jawaabta la bixiyay ee xukuumaddu bixisay ma habboonayn inay noqoto dadka in xabad lagu rido la laayo ma ahayn jid kale wax lagu haliyaa la heli karay saxna ma ahayn dad aan hubaysnayn oo mudaharaadaya oo qayliyaya oo xaq raadinaya in xabad la dhacay ninna garowsho ku heli maayo iyaduna sax ma ahayn mowqif sax ma ahayn gartu allay leedahay
gari allay leedahay midda saddexaad waxay ahayd markay odayaashoodii iyo khiyaartoodii intay isu yimaadeen ay tashadeen go'aan ayagu ay maslaxo bideenna ku dhawaaqeen oo aynay Soomaali weyntaasi qayb ka ahaadaan ayadana ma ahayn jawaabta la bixin lahaay mana munaasibku ma ahayn in dagaal lagu qaado madaafiic lagu garaaco sax ma ahayn meel kaloo la mariyo jid kaloo looga wareegaa la heli karay kullu dalika waa khaladaad isfuulay oo tahay in la cadeeyo anoo og Soomaaliga maanta joogay akhrintiisa iyo daraasadiisa iyo fahamkiisa iyo miisaankiisu inuu qabyaalad yahay oo in badan ay dhihi doonaan wadaadka waxa ka hadlinaya waa qabyaalad iyo dhalasho anoo og ayaan haddana aan dan ka lahayn xaqa inuu cadaadiyo sawaabka muhim haba khadhaadhaado laakiin waxa kugu soo gaadhay aflagaadiya faham xumo ninkeeday u taalaa laakiin xaqiiqada in la cadeeyo waa laga maarmaan kullu dalika waxa mas'uul ka shacabka dawladda u talisaay mas'uuliyadeeda way ayada laga rabaa shacabka amnigiisa inay ilaaliso iyada laga rabaa istiqraarka inay ka shaqeyso ayada laga rabaa wixii dib ku soo kordho dadka inay iyadu xalliso iyada laga rabaa mashaakishani intaynan isqalin inay wax ka qabato mas'uuliyad dawladeed waay waxaan ma yimaadeen hadii ay hore wax loo xallin lahaa ayadoo taasi jirto ayaa haddana waxaan leeyahay xal ma aha dagaalku ninku faa'iidayna ma jiro waa in la joojiyo maslaxadana loo soo noqdo wada hadal loo soo laabto ummaddu wada fadhiisato dhiigga la daadinayo la joojiyo magaalooyinka la garaacayo la joojiyo dadka qaxaya la joojiyo dhibaatadan socota in ay istaagto way حتى هدي لوضع دين عميدكود وإسقر سينيو أما قر ليه ما كان يسو إن مسلمين تديك قوضا لداذيو بل سيدا في عني وحوي إن مصلحة اللوغة وريقوا وحب دليلوا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحوسي الشيقي لعدا إيمان دونت وحوسي الشيقي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن أي لبكو حوض مسلمين تكمدي إسلين دونان لبدا كوحود حلقي إسلايان وحا كدح بحي دونتا كوح كلو صدحات كوح ذا قوني ذا أبحذي الصدحات وحا الله دقالمي دونتا بالنبي صلى الله عليه وسلم لبدي كوحود دقالمي يهوري مدو ذا حق أدو أيا الله دقالمي دونتا كوح ذا بحذي بالنبي صلى الله عليه وسلم waxaa lagu fasiray xaqiiqaduna tahay xilligii saxaabada rabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dagaal dhex maray Ali ibn Abi Talib iyo ciidan uu hogaaminayo radiyallahu ta'ala anhu iyo Muawiyah ibn Abi Sufyan ee Reesham oo ciidankiisa labada ciidan waa labadii ciidan ee muslimiinta nabigu tilmaamay inay isku dhici doonaan dagaalkooda dhexdooda waxa ka baxay khawaarij oo labadiiba intay ka dhex baxeen bay meel isku urursadeen oo labadii qoloba gaalaysiiyeen khawaarij waxa la dagaalamay Ali ibn Abi Talib iyo ciidankiisii kooxdiisii ba la dagaalantay nabiguna wuxuu sheegay kooxda waxa la dagaalami doona labada kooxood midooda xaq u dhow Ali iyo kooxdiisa xaq uga dhaweyd Muawiya iyo ciidanku watay nabigana sheegay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi haddii rasuulku yidhi qoladaasa xaqa u dhow haddana maca daalika dagaalka dhexdooda nabigu ma amaanin sallallahu alayhi wa alihi wasallam bal nabigu ummadda wuxuu ugu yeedhay adoo xaqa uga dhow oo ka gar leh haddana ku dadaal inuusan dhiig daadanin oo maslaxa la raadiyo oo la wada hadlo oo dhibaatada la soo afjaro wuxuuna nabigu arrintaa ku tilmaamay sallallahu alayhi wa alihi wasallam wiilkiisa Xasan ibn Ali ibn Abi Talib سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيو رسولك صلى الله عليه وسلم مال إسقو أكتي سفر النبي يقول من بركة ساريه أيو رسولك مرنا إسقى في رياء مرنا أمضوا في رياء مركز النبي يقول صلى الله عليه وسلم ويل كيغني وسيد إلهينا وحكوه الشيسين دون اللبكو حوضا ووين أو مسلمين تو إسلينيا
ayuu ilaahay ku heshiisiin doonaa sababtiisa xasan ibn ali ibn abi talib markii aabihii cali la dilay isaga ayaa xilkii qabtay markuu saa u qabtayna mucaawiya wada hadleen wuu ka tanaasulay mas'uuliyadii buu uga tanaasulay isagoo ciidan xoog badan iyo tabar xoog badan oo waliba amr ibn aas oo mucaawiya la socday aad uga calaalay ciidan xoog badan isagoo xasan heli kara ayuu ka tanaasulay dhiigga muslimiinta si loo baajiyo wuxuu uga tanaasulay mucaawiya uga tanaasulay sanadkaasi waa sanadka caamul jamaaca la yiraahdo waa sanadka muslimiintu mar kale isu yimaadeen dagaalkii dhexdooda uu dhamaaday midnimadii ay dib u soo noqotay hal dawladda ay yeesheen kala jabkiina uu baaba'ay nabigu u fiirso marka asagoo tilmaamay cali iyo kooxdiisu inay xaq leeyihiin haddana nabigu dagaal ma amrin kulamana talinin bal wuxuu amaanay sulxa iyo heshiiska laga galay dagaalka isaga ayuu nabigu sayidnimo ku siiyay wiilkiisa xasan radiyallahu ta'ala anhuma marka xaq baan leeyahay iyo gar baan leeyahay inta aad heli karto meelaad uga leexato oo maslaxa iyo nabad ku raadiso inaad dagaal iyo dhiig muslim gashay sax ma ah laba gooraba dagaalkaasi inuu sii socdaayo maslaxa kuma jirto waa in la soo afjaro oo dagaalkaasi la joojiyo innaga muslimiinta kale Soomaalida kale ummadda muslimka nidaam iyo dawlad iyo shacab waxa inaga saaran xil laba arimood arinta koobaad waxa weeye in la galo heshiisiin wada hadashiin isoo jiid cadaadis in la saaro dhinacyaha cadaadis la saaro cid kasto awood kulana ay ka shaqeyso sidii loo joojin lahaa xabadan iyo dagaalkan loo heshiin lahaa waajibina saaran waa الله قرآن الكريم كأوحو كليه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما هذا لوكو حوض مسلمين تا إسلايان مؤمنين تا هشيسية وألا ليه تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم هشيسية كالعشقية واجبك إن صارنك إسقاوا ما هنا دين على صفرنا دين عكلنا كصفرنا فتنة سيسية دين مئه وإن إنه كشقينه سيدي مصلحكو إيمان لهيد هشيسية وألا ليه تبارك وتعالى طبعا هدي كوح كم إذا كوحها هشيس كديدو oo ay ku gacan saydo oo dagaalka khiyaarkiisa ay doorato markaas rabbi wuxuu tabaaraka wa taala haday kooxi diido heshiiska idinko kulligiina la wada dagaalo marka si loo soo afjaro mushkiladan ayada quraanka rabbi hadda aan akhrina waa ku tilmaamay fa in baqad ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah waajibka muslimiintu waa ka isaga waajibka labaadi wax weeye dadka ku dhibaatoobay dagaalka isaga ku barakacay ku dhaawacmay ku baabay dhinacay doonaan ha jiraan in loo gurmado in la caawiyo in la daaweeyo banaan bay joogaan qorraxda ku dhacaysa kuleylka jira wada ogsoontiin hoy male in dadkaasi loo gurmado wixii la gaarsiin kara la gaarsiiyo iyadana waa waajibka labaad ina saaran meel kasta oo muslimiinta mushkila ku haysatana inaynu ka jawaabno oo aynu wax la qabanno dadka dhibaataysan waajib iimaanku ina farayo waay qodobka saddexaad ee inuu waajibka wuxuu yahay in la joojiyo olaha qabyaalada ee dagaal oogida ee xamaasadu ku salaysantahay xamaasadu ku dheehantahay ee ka socda media ka socda ee aan maslaxa u adeegayn ee la taxriifinayo hadal baa xabada ka daran hadal baa fitnada uu aboorayo madfaca ka daran in hadalada iyo waxa la isdhaafsanayo iyo ummadu ka shaqeyso in sulxa iyo maslaxada iyo wanaagiisa iyo dagaalka xumaantiisa laga sheekeeyo dadka walaalaha la isu soo jeedo laakiin aan laga shaqeynin in balaayo la abuuro fitna la kiciyo media loo isticmaalo meel balaayo lagu abuuro ama muxuu ahay qashinkii wadanku soo maray dib loogu abaabulo arintaasina waxa weeye waa fitna culayskeeda waxaad ogaataan kelimada ka baxaysa waa mas'uuliyad ilaahay hortiisa lagu weydiin doono haddii ruux muslima dhibaato lagu gaarsiiyana adaa u soo istaagi doona kelimo nuskeed haddaad kaga qayb qaadato dhiig muslimna maalinta qiyaamada ilaahay hortiisa soo istaagi doonta ku talagal ruuxba naftiisa ha xisaabiyo maslaxadii wanaagana ha laga shaqeeyo